waa dhacdo ku cusub gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waa dad tuuriyeynaya qaarkoodna jirdil u geysanaya in la sheegay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab oo la soo qabtay isaga oo abaabulaya qarax shalay lala damacsanaa in lala eegto isbartiibada Stadium Muqdisho oo ciyaar lagu maamuusay munaasabadda 63 sano guurada ka soo wareegatay markii xurriyadda ay qaateen gobolada waqooyi lagu qabtay iyadoo munaasabadaas uu ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud. dadkii ayaa waxa ay noqdeen mid tuuriyeeya, mid feera, mid dharbaaxa iyadoo ay ciidamada booliisku ka celcelinayeen boqolaal qofood oo dhammaantood tuuriyo iyo jirdil isugu daray. arrintan waxay noqotay mid aad iyo aad dadku ay ula yaabeen maadaama ay ahayd dhacdo ugub ah sidoo kalena aan hore u dhici jirin. haddaba daawadayaal, muuqaalkan qof kasta uu soo gaaro waxaan ka codsanaynaa inuu like inoo saaro si uu meel dheer u gaaro, sidoo kale aad inoo share garaysaan idinka oo aragtidiina qaybta fariinta inoogu reebaya. muuqaalkan waa mid aan ka soo dejinnay barta TikTok laakiin uu noqday mid si weyn u qabsaday bartaas iyo baraha kale ee bulshada, waxaana dadka intooda badan ay sheegeen inay ka xun yihiin in la dhibaateeyo dadka shacabka ah ee ku nool Muqdisho, sababtaasina ay tahay sababta ugu weyn ee ay ninkan u beegsadeen. bal aan isla daawanno muuqaalka oo dhammaystiran iyo sida ay wax u dhaceen, bal adiguba indhahaaga ku daawo. Dila